kulan aan caadi ahayn oo ay ku madansanaayeen xubnaha baarlamaanka Hirshabelle ayaa maanta gabi ahaanba fashilmay. Kulankani oo ay ku madansanaayeen golaha baarlamaanka ayaa ajendaha loogu dooday waxa uu ahaa ansixinta golaha wasiirada oo uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare. Kulankani ayaa koramkiisa uu idlaan waayay, taasi awgeedna waxaa la isaga soo hayaamay gudaha madasha kulanka ay ku yeelan lahaayeen golaha baarlamaanka Hirshabelle. dhanka kale waxaa jiray kala go'naansho muujinaysa in golaha baarlamaanku ay leeyihiin laba kulan oo maanta ay yeesheen golaha baarlamaanka. qayb ka mid ah golaha baarlamaanka oo tir ahaan gaaraya 42 xildhibaan. mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ayaa markii la isaga soo hayaamay gudaha howlka ay golaha baarlamaanku shirka ku yeelan lahaayeen la hadlay warbaahinta. waxa uu sheegay in kulanka baaqday uu u baaqday sabab jira awgood. كليبا وحان إسلايها وهو برلمان كلا فكرة دوانان واسكجري كرتا لكن علد وين وحدا لو أنفرت كوفيق كرو أبدي كرو يكون مغيين لما أركو dadku waa iska baaqmuldo gabal iska beeraleeya gabal isbitaalaya caruurta ka jirayeen laakiin kooranka wax yaraba ka dhimaanaaday waxaana guddoonka baarlamaanku markuu soo gabagabay noo soo kadib noo sheegay inuu dib u soo cilaami doono waa ka warsugan insha Allah golaha wasiirada wax shuruudo oo hor dadban in la ansaxaya bataata ma jiraan saan idin sheegay baarlamaanka kala fikri duunaashiisu waa arrin yaani dimuqraadiyada guddoonka dhexe oo qofka ma dhihi kartid anigu waxaan aaminsanahay qofka taageera xukuumadda ha ku taageero mabda'iya sida wax loo soo dhisay la fiican tahay ha ku taageero inuu asagu yaani dantiisa ka dhax fiirsana ha ku taageero in beeshiisa wasiirad badan la siiyay kan diida ha ku diido cilad oo u arko inay ka daran tahay ha ku diido saam oo meeshii ka waayo kalaan balance ah laakiin hadda waxa lagu kala baxaa waa cod waxa cod ku xiran yihiin waa tira yaani 50 balasool waxa magaalada Jowhar si weyn looga hadalhayaa golihii wasiirada uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare iyo qaabkii loo ansixin lahaa. عبد الفتاح أحمد معلو عبد الفتاح زكي بوليشة TV.